caruur agoon ah oo ka badan 120 caruur ah ayaa maanta Muqdisho ciisiin waxa uu sameeyay xarunta Maamo Cuday Foundation oo caawisa kuwa danta yar ee aan awoodin qarashaadka nolosha aasaasiga u ah waxaana qayb ka ahaa ciisiinta caruurta agoonta dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Caruurtan ayaa loo qaybiyay dhar iyo agabyada kale ee maalinta ciidda ay caruurtu ku ciyaaraan. Sadaqadan ayaa waxa ay ka timid hooyooyin Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool kuwaas oo ugu talagalay in caruurta agoonta ay la farxaan bulshada maalinta ciidda oo maalmo kooban ay naga xigaan. Ugu horeyn qaar ka mid ah dadkii la siiyay dharka ciidda ayaa ka mahad celiyay. qaar alla aniisiyo wixii xun ilaa aniga xijaabo dharkan dadkii soo dhimay sadaqa jaarni Allah aaga dhigo ilaahay maclu ani mootiyo ilaahay caweentana ani la qaado qori qani alla ani qabto wixii alla aniga xijaabo sadaqa jaarniina u soo baxsateen ilmihiin caawinaadka ilaahay muslimiintana oo ilaahay wax u sahlo qaarna alla asiyo muslimiinta qaar alla asiyo ninkii soo dhiibina ajir iyo xasanaad ilmihiisa baari Allah aaga baariya barakoobe ilaahayna ka yaabo gacantii soo dhiibtana gacantii daanyeer oo wax waayno oo buuxsanto Allah aaga dhigo walaalinta muslimiinta oo sadaqadan jaariin loo soo dhiibtay inta loo soo kaalmaysi inta la siisi oo soo gaarsiisi waa u duceeyni ilaahay idinkiisa waxaan jeclahay miisaanka qiyaamihiisa ilaahay u saaro waa u duceyneynaa walaalahan oo sadaqadan iidan soo gaarsiiyay oo marasheey ilaahay ha marasheeyo ilaahay wixii dhibay ilaa ka dhaxsado cimrigooda ilaahay u siyaadiyo ana kana masaakiin anahay waa u gargaarin ilaahay u gargaariyo kana walaalahan waa jecelnaa u galaan jecelihiin waxay soo gaarsiisay sadaqa jaari ilaahay ka dhigo midigta loo saaro miisaanka qiyaam ilaahay u saaro. Hussein Ali Ahmed oo ku hadlay magaca Maamo Cuday Foundation ayaa ka warbixiyay qaybaha ay ka koobnayd ciisiinta caruurta agoonta iyo dadka kale ee baahiyaha gaarka ah qaba. farxad gelinta caruur isugu jirta agoon rajo iyo danyar tira ahaanna gaaraya 130 caruur ah. waxa kale oo aan ka maqnayn waayeelo aan ubad haysan iyo kuwa baahiyo gaar ah qaba. ilaahay ajar iyo xasanaad ha ka siiyo. waxa isu xilqaamay hooyooyin Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool kuwaas oo la magac baxay walaalaha gargaarka agoonta dugsiga Daarul Muttaqiin ee Maamo Cuday Foundation. waxa ay had iyo jeer caawiyaan caruurta aad u jeedaan ee dhigata dugsiga Daarul Muttaqiin ee Maamo Cuday Foundation. arkaynayna ciidsiinta iyo ka farxinta agoonta iyo dadka danyarta ah ee ay u istaagtay mu'assasada Maamo Cuday Foundation. aad iyo aad ayaan u mubaarakaynayna waa bil Ramadaan waa 10kii dambe waa xilliga ay ugu wanaagsaneed sadaqada qof muslima in laga farxiyana waa waxyaabaha ugu ajarka badan oo ilaahay agtiisa wax looga helayo. hadduu agoon yahayna maba ku sii jirtaba ama uu yahay qof baahi gaar ah qaba. waxaan ilaahay uga baryaynaa walaalaha agoonta Daarul Muttaqiin Maamo Cuday Foundation ilaahay inuu barakeeyo barwaaqo iyo bashbash inuu gaarsiiyo sanad. Sucaad Cabdi Casiis Daayir warbaahinta qaranka Muqdisho.